xiriirka oo soo dhamaada isdhii karaa waqtiga halaan keene والله لو قف حرير مركو دحمر ay kala tagaan nin walba dantiisu raacana qof walba waxa xiriir cusub sameysana marka anna waxa rajeeyana xiriir cusub sameysto oo waqtigii waxa meel kale ku bixiyo kubadda cagtana waxa jecel dirtismo fadhiisanay way ani nin dhalinyaro daayira ah saaxiib yar waxa la jooga mid kamid ah xidigaha ugu saameynta badan kubadda cagta dalka sidoo kalena daayirka ugu saameynta badan oo maanta ilaa iyo xalay baraha bulshada si weyn u haystay xaafid leeyo oo aad taqaanaan mid kamid ah xidigaha qaranka kuwada ugu saameynta badan sidoo kale xidigaha kooxda kubadda cagta Elman qaybka soo dhaw xaafid maanta baraha bulshada haysto ku soo dhaw torta TV Azul waran ilaa ma iskala kan nabad iska keenay maanta waxa leeyahay gamekeeda xawa gamekeena waxa leeyahay galabtiga waxa leeyahay dhigeen tikada Azul Sports noo ku dhaw xaafid baraha bulshada maanta ilaa ay xal adaa haysta mid kalena odayga waa mucaashiq weyn la dhahay sidoo kale kubadda cagta waa ka fadhiisan raba bulshooyinta Soomaaliyeed ee ku hadlaysa maxalleeda والله qofka markuu magac leeyahay waxa wax yar oo ka dhaco waxa wala buuna marka waxyaabaha qaarna waxa inta waxa inaa ka sheego maro marka waxa aan sports ah marka sports maadana waxyaabaha qaar inaa ka hadlo waxa diyaar ma waxa tahay xiddi kamid xidiga ugu saameynta badan dalkan dacyar ah qaran saftay koob soo guuleystay magaca ugu weyn waxa ka sameeyay kubadda cagta Soomaaliya iyadoo dad badan oo bulshooyinta qaybooda kala duwan ay ku barteen maxaa sababay in kubadda cagta aad ka fadhiisato dadka qaar waxay leeyihiin waa jecel والله qofka markuu waxa waxyaabaha qaar oo iska dhaafi karaa qofkana markuu wax iska dhaafayna waxa isaga Jesus ka dhaafi karaa wareysi marka bixinaaye iyo hadalna had Facebook wareegayna waxa isma laha yani galaba wareysiga bixiye waxyaabaha qaar u dhacna waxay ahayd habeenkii oo ahay marka ani waxa mar walba xaafidna mar walba xaafid waaye magaceena mar walba sareeya markii waxa rajeynaa insha Allah kubadda cagtana waxa hada ka fariistay xitaa waxyaabo kale inaan qabsan doona rajeynaa insha Allah waxa kubadda cagtana waxa jecel dirtismo fadhiisanay way ani nin dhalinyaro daayira ah still am deegaanki waxa maanta qof mooynin oo nolol wada qaybsano ama nolosha la qaybsado waa nin karagana waxa boqolana ugu shaqaysan kara xaafid sida ogtahay waxa tahay shakhsi kamid ah xidigaha dalka kuwada ugu saameynta badan caalamka waxa lagu arkaa xidiga xiriir badan sameeya xidigaha ugu saameynta badan xaafid waxaan ku ogeyn hal shakhsi oo xiriir ah xiriirkaas oo si weyn u jiray oo sanadihii ugu dambeeyay iyo bilooyinkii ugu dambeeyay xiriirka still ma jira ama almost waxa waaye magaalada lagu kala qaratay wallahi loo qof xiriir markuu sameeyay wanaag wax walba dhaxmaro marka qaar dadku waxa waa isdagaalaan heshiiyaan marka waxa in badan waxa xiriirkaas soo wadnay uu soo dhamaaday marka waxa xiriirka oo soo dhamaada isdhii karaa waqtiga halaan keene waayo markuu waxa meesh buuq ka dhasho labada qof waxa mar walba is dagaalaan in la kala danaysta fiican nin walba dantiisu raacdo marka waxa anna waxa danaysta sidaas ugu dambeysay xaafid waxa leedahay macallimiin badan kubadda cagta saaxiibo badan kubadda cagta ma jira erboodi kugu soo dhacay ama dhiirigelin kugu soo dhacday ee ku aadan dhinaca kubadda cagta ah macallimiin ku dhahay waa sii wadan kartaa mid kalena ma aaminsantahay adiga magaca ka sii weyn inaad sameyn karto maadaama daayir aad tahay oo wali kulamadii ugu weyn horyaal aad ku guuleysan hadda horyaalkan aad wada booska afraad aad ku jirto qaran adoo daayir aad qaaday ma isleedahay ku guuleysan kartaa sanadaas oo aad mid kalena macallimiinta kaaga imaadeen barnaamij noocaas oo kale ah oo dhiirigelina والله معلمين waxa badan waa ila soo hadeen oo dhiirigelina jiro oo waxa soo waceen oo kamid ah macalinka Imaad Maxamed Xaaji macalinka Mustafa Faransa marka waxa dad badan oo dhiirigelin waa jiraan marka anna sanadkan waxa rajeynaa waxa go'aanka aad qaaday inta go'aan qaadan ka hor waxa ciyaaraha markay dhamaadaan horyaalka marka horyaalkan inta aad u dhameysana insha Allah waxa rajeynaa inaan adiga ilmaha kula guuleysan waan waxa nasiibkay mu noqon mana calfan إن شاء الله وحرجينا مجيء وحوا مرور بهدا كوبد إسكده في وحوا يعني هديك له مجيء إنه سيسر رجينا مرور بنا وحوا يعني وحوا قرن كي وحوا تذكر حاجة إن قرنات إن اللي برتون وحوا سوا بقرن سوماليا مركو حوا فرح سنة waxaan qana mucaashiq jacayl in aad u yaqaan ciyaariyahan furan ciyaariyahan dabeecad leh ciyaariyahan si weyn baraha bulshada loogu hadalhayo bal jacaylkii ma sii wadi doontaa anigu su'aasha ugu dambeeyna ku sii weydiin doono jacaylkii odayga ma sii wadi doonaa والله لو قف حرير مركو دحمر ay kala tagaan nin walba dantiisu raacana qof walba waxa xiriir cusub sameysana marka anna waxa rajeynaa in xiriir cusub sameysto oo waqtigii waxa meel kale ku bixiyo waayo qofkii markuu waxa xiriir ay wada dhaxmaran nin walba waxa
markii kala tagaan oo buuqi wax u dhasho waxa waa la kala tagaa nin walba intiisa raaco wiligeeda la kala tagi jiray marka waxa waaye waxyaabaha qaar meesha inaa ka sheegay maray dad markii kala tagaan waxa waaye ninka ragga waxa waaye waa ninka Soomaaliya aad iyo aad su'aasha ugu dambaysa ku weydiinaa waxay tahay Cabdixaafid maadaama tahay player oo saameyn weyn ku leh kubadda cagta dad waxaa jira hadda baraha bulshada just now wariyaal ahaadaan shakhsiyaad kale social media caanka ahaadaan isnaab ahaadaan way ku hadalhayaan fariinta ugu dambaysa dadka soo diray maxay والله qof markii la hadalhayo waxa waa nin magac leh waaye oo maanta baraha bulshada ku weyn waaye qarax saab lagu macili karo aad iyo aad mar walba ana xaafidkiyahay waxa waaye wajigan iyo waxa waaye lugtaan waxa waaye magac ku sameeyay marka waxa rajeen dad badan waxa waaye fiisad u baahan yihiin marka ana ay imaadaan ana wax badan ka caawinay barnaamijka jecelkan waxa waa nolol kooda aad iyo nolol cusub aad iyo aad هذا بس